maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xukun dil toogasho ku riday Saalixi Xafiifi Xamuud oo u dhashay dalka Yemen kaasoo bilo ka hor ciidanka Puntland ay ku soo qabteen deegaanka Xaabo ee gobolka Bari isagoo sida hub iyo waxyaabaha qarxa waxaana warbaahinta maxkamadda gudaheeda lagu soo bandhigay waxyaabihii lala soo qabtay ninkaasi ajnabiga oo u badnaa baaskoolad iyo waliba alaabaha qarxa laga sameeyo dhageysiga dacwadda eedeysanahan Yemeniga kadib gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida gobolka Nugaal Gaashaale Axmed Cabdi Bootaan ayaa ku dhawaaqay inuu ku xukuman yahay ninkaasi dil toogasho kadib markii baaritaan lagu sameeyo lagu ogaaday inuu ka mid yahay ninkan argagixisada caalamiga ah oo Puntland soo galiyo hub aad u tiro badan Saalixi Xafiif Xamuud markii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay dhageysatay doodii xeer ilaaliyaha oo horkeenay markay akhrisatay qoraalkii xeer ilaaliyuhu soo gudbiyay markay akhrisatay gal dacwadeedkii laga soo gudbiyay ee qoladii soo baartay ee dambi baarista maxkamaddu darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u aqoonsatay eedeysanaha oo horkeenay qalabkii lagu qabtay oo ka koobnaa karaatiin ay ku jirto waxa qarxa iyo baastoolado shana oo ku waday doontii uu lahaa oo ka soo kaxeeyay dalka Yemen oo keenay Soomaaliya magaalada Xaabo kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalkii oo maxkamadda ka hor dhirtay oo uu dhirtay inay isagu uu mas'uul ka ahaa doontaas watana mulkiyadeedana ahaa isla markaasna uu keenay dalka Soomaaliya khaasatan Puntland magaalada Xaabo markay dhageysatay maxkamaddu qareenkii daafacayay kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysane Saalixi Xafiif Xamuud dil toogasho iyadoo u cuskatay qodobka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 222 iyo xeerka argagixisada adduunka qodobka saddexaad gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida Puntland ayaa dhankiisa ku dhawaaqay dhammaan qalabkii loo soo qabtay ninkan dilka toogashada lagu xukumay inay la wareegayaan dawladda Puntland gaar ahaan xarunta madaxtooyada bismillahir rahmaanir rahiim anigu gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxaan la wareegay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan kala wareegay qalabkii accident-ka ahaa oo lagu qabtay eedeysane magaciisa Saalixi Xafiifi Xamuud oo u dhashay dalka Yemen maxkamadda ayaana qalabkaas la wareegtay dhammaantiis hadduu ahaa gooyo hadduu ahaa qarax hadduu ahaa hub hadduu ahaa fiisyo intaba maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa la wareegtay waxayna geynaysaa meeshii loogu talagalay waa markii ugu horeysay oo dawladda Puntland xukun dil toogasho ku riday shakhsi ajnabi ah oo lagu sheegay inuu ka mid yahay argagixisada caalamiga isla markaana ciidanka ammaanka ay ku soo qabteen hub iyo waxyaabaha qarxa isagoo marayay xeebta Xaabo ee gobolkaasi Bari Cali Cabdi Casiir